howlgalladan oo maanta mar kale dib uga bilowday deegaanada nawaaxiga Baarsanguuni ayaa waxay maanta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ay si buuxday ay ula wareegeen tuulada Sanguuni iyo deegaanka Fagaan iyo tuulooyin kale oo ka tirsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo howlgalladaasi ay si xoogan u soconayaan isla mar ahaantaana ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ku sii wajahan yihiin degmada Jamaame ayaa haddana saraakiisha ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay bilaabeen in tuulooyinkii la xoreeyay ay geeyaan ciidamo booliisa si nabadgelyada deegaanadaasi ay uga shaqeeyaan. haddaba iyadoo howlgalladan ay sii soconayaan ayaa haddana waxaa dowlad goboleedka Jubbaland ay bilowday sidaasi si lamid ah gaarsiinta dadka danyarta ah ee tuulooyinkaasi ku nool ee la xoreeyay raashin mucaawino ah oo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ugu talagalay shacabka tuulooyinka la xoreeyay oo xilligan ay ka muuqato diifta dhibaatooyinka dhinaca nolosha ahi oo xilligan markaasi si weyn looga dareemayo dadka tuulooyinkaasi ku nool. deeqda raashinka ah ee dadkan la gaarsiinayay ayaa waxaa horkacayay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland iyadoo deeqdaasi dhammaanba loo qeybiyay tuulooyinkii la xoreeyay oo xilligan dadkii ku noolaa ay dhibaatooyin dhinaca nolosha ay haysato. gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo meel fagaaraha kula hadlayay dadka deeqdan la gaarsiiyay ayaa waxa uu yiri waxaan idin sidaa salaan qaali ah iyo hadiyadan raashinka ah oo si gaar ah idinku soo diray madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan inaad guddoontaan baan rabaa. marka hore waxaan u mahadcelinayaa ciidanka Jubbaland iyo ciidanka SNA oo runtii guulo lama filaan ah ka soo hoyiyay goobahan hore ee jiida hore ee dagaalka ee hadda aan taagan Sanguuni. waxaan uga mahadcelinayaa sidii uu sheegay taliyaha ciidankan SNA in annaga ay noo tahay muhiim dagaaladan dhacaya in 95% Ilaahay amarkii laga badbaadiyo shacabka. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ugu baaqay shacabka tuulooyinka la xoreeyay in ay u diyaar garoobaan la dagaalanka kooxaha nabadeedka Al-Shabaab oo uu sheegay in ay cadow ku yihiin jiritaanka nolosha ummadda Soomaaliyeed waxaana uu sheegay meeshan waxa taagan waa ciidan weyn haddiina la shaqeynin oo idinka iyo ciidanku ayna isla falgelin cadowgu way naga faa'iideysanaya gaajada iyo rafaadka iyo oonka idinka muuqda yaa idin haysanaya laakiin haddaad ciidanka la shaqeysaan qorigiina aad qaataan marna aad qoriga qaatid marna aad beerta gashid waxa weeyaan cadowgana uu iska tagayaa waa moraal jabsan yahay waqtigiisa wuu dhamaaday waayo xaqa iyo baadilku isku meel ma galaan. howlgallada xoogan ayaa inta badan waxay ka dhacayaan tuulooyinka dhulka beeraha ku yaala ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo dadka shacabka ah ee degan tuulooyinka la xoreeyay ay kooxda shabaab ku fureen guryahooda biyaha wabiga oo ku soo fatahay iyadoo hadda dowlad goboleedka Jubbaland ay bilowday gaarsiinta deeqo kala duwan oo la gaarsiinay dadkaasi si markaa wax looga qabto dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee dadkan soo food saaray.